sidaa idiin muuqataa goobtan aanu taagannahay waa Lawyacado dhinaca Somaliland saaka 8 subaxnimo ayaa waxaan imi halkan waxaanu maanta goobtan kula kulannay wax mucjiso ah gaarigan aanu wadano waxaanu u soo qaadnay warqad ay bixisay safaaradda Somaliland ee ku taala Djibouti ujeedada safarkayagu waxay ahayd inaanu tagno magaalada Saylac oo aanu soo duubno masjidka la yiraahdo Qiblateyn oo kamid ah aasaarta Somaliland ee si baaba'aysa isla markaana aanu ganacsatada iyo shacbiga reer Somaliland ba ka codsano in dib loo dhiso hayeeshee waxyaabihii aanu halkan kala kulannay markii aanu goobtan soo galnay oo xarunta immigration-ka aanu ka bilownay markiiba waxaanu qaadanay sidii caadada ahayd fiisihii iyo dalku galkii Somaliland markii aanu qaadanay fiisihii iyo dalku galkii Somaliland wasaaradda maaliyaddana aanu siinay ama bixinay lacagtii ay nooga baahnayd ayaa taliyaha booliiska ee Lawyacado waxa uu na weydiistay inuu marka hore intaanaan dhaqaaqin uu gaarsiiyo taliyaha qaybta booliiska Mastar Xandulle ee gobolka Salal markii uu la hadlay taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Salal taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Salal ayaa isna waxa uu la sii hadlay generalka ama taliyaha guud ee ciidanka booliiska Somaliland General Fadal wuxuu warbixin ku soo celiyay in aan la ogolaan karin groupkaasi ku socda Saylac isagoo oo aan sheegin wax sababa haba yaraatee General Fadal khadka telefoonka ayaan kula xidhiidhay telefoon markuu telefoonka iga qabtay General Fadal ee aan idhi waa Cali Seeyo telefoonkiiba ugu dhigay dabadeedna wuu xidhay waxyaabaha cajaa'ibka waxa kamid ah hadaba taliyaha immigration-ka Somaliland General Dayib ayaan khadka telefoon kula xidhiidhay Dayib markii aan la hadlay waxaan ku idhi fiisayaashii baanu qaadanay waxaanu bixinay lacagtii wasaaradda maaliyadda waxaanu sidanay warqadii ay noo soo qortay safaaradda Somaliland haddana waxaana joojiyay General Fadal oo aan isagu shaqaba ku lahayn xuduudaha sida caalamka la og yahay xuduudaha waxa ay soo martaa 3 qaybood qayb ah safaaradaha oo fiisayaasha soo bixisa immigration-nada oo iyaguna halka fiisaha ka bixiya iyo customs-ka ama wasaaradda maaliyadda oo iyaduna halkaasi lacagta markaasi loo baahdo ama xuquuqda cashuuraha ilaalisa hase yeeshee ciidanka booliisku meel la kama soo galo inuu joojiyo qof fiisa sita oo si sharciya ku socda haddaba waxa la garan laayahay halka ay kabtu ka xoqayso General Fadal waxaase isweydiina Somaliland iyo Djibouti ma kala dili karaa General Fadal waxa uu suuqa Hargeysa marinaya Cali Seeyo waxa uu watay nin Oromo ah afarta qof ee meesha marayay marka laga reebo cameramanka Saab TV oo isagu ah reer Djibouti saddexda kalaba waxay ahaayeen Somaliland waxaanu idin soo gudbin karnaa baasaboorradoodii oo mid waliba halkii uu ku dhashay oo Hargeysa ay ku qoran tahay waxa nasiib darro noqotay markaa taliyaha ciidanka immigration-ka ee Somaliland inuu u habrado ama ka boqo General Fadal oo isagu ah ninaan aqoon police iyo mid diblomaasiyadeed midna lahayn General Fadal Somaliland ka hor weligii xidig muu saarin garabkiisa hayeeshee waxa nasiib darro waxaanu garanayn oo aqoontiisu gaarsiisnayn inaanu aniga iyo inta ila midka ah reer Somaliland aan marnaba cidi ka celin karin Somaliland wadanka qofka waa loo masaafriyaa lagama masaafriyo marka General Fadal wuxuu barmadow ku noqday ama gudcur hareeyo ku noqday ciidanka sharafta leh ee booliiska oo iyagu ah heeganka amniga ummadda reer Somaliland ay ku seexato waxaanu leenahay General Fadal uma qalmo inuu hogaamiyo ciidan sharafta iyo awoodda leh haddaba waxa la isweydiinayaa wasaaradda maaliyadda iyo immigration-ka sidee bay markaa uga amar qaadanayaan taliyaha ciidanka booliiska waxaynu ognahay inaanay jirin wareegta ka soo baxday madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo lagu xidhay xuduudka u dhaxeeya Djibouti iyo Somaliland waxaynu kala ognahay in madaxweynaha Somaliland uu fahansan yahay in labada dal ee walaalo ah ee jaarka ay yihiin laba dal oo aan marnaba kala maarmi karin waxaynu ognahay inaanay jirin warqad taa la mid ah oo ka soo baxday wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee jamhuuriyadda Somaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed bal haddaba dad fara badan ayaa waxay la yaaban yihiin waxyaabaha ka taagan ciidanka booliiska iyo hoggaan xumada haysata ciidanka booliiska ee jamhuuriyadda Somaliland Cali Axmed Raabi Cali Seeyo Saab TV Lawyacado